habboon daawaday waxa aynu hawada ku kala maqnayn muddo 6 bilood ah balse waxaan dib u bilaabi doonaa haddii alla hawada lihi ogolaado barnaamijyo taxane ah oo aan kasoo turjumi doono luuqado kale iyo sidoo kale qaar aan soo diyaarin doono. barnaamijkan ugu horeeya waxaynu ku eegi doonaa dilal ka dhacay dalka Suuriya iyo sidoo kale qaabka uu ula dhaqmay dictatorka haysta dalka Suuriya Bashar al-Assad shacabkiisa. qaybta koowaad ee barnaamijkan ku soo dhawaada daawadayaal. digniin laga yaabo inaad la kulanto sawirro ku cabsi geliya balse taxadirkeeda lahaw. waxa uu ahaa 24 sano jir da'yar waxaana uu go'aansaday inuu ka baxsado dalkiisa isagoo haya mid ka mid ah siraha ugu xoogan ee Bashar al-Assad laguna soo taagi kara maxkamad. bishii Febraayo sanadii 2012 ayaa ay bilaabmeen markii ay isku dhaceen ciidamada Bashar al-Assad iyo sidoo kale shacabka ku dhaqan dalka Suuriya kuwaas oo diidanaa nidaamka muddada dheer haystay ee ka dhaxlay aabihii Xaafid al-Assad. balse su'aashu waxay tahay sidee buu dalka uga baxay iyadoo aan cid ogaanin. waxa uu sheegay inuu kaashaday magafe ama sidoo kale qof dariiqada kala yaqaana oo tahriibiya. waxa uu sheegay inuu la soo baxsaday dokumentiyo fara badan kuwaas oo isugu jira qoraallo iyo sawirro isla mar ahaantaasina uu kusoo qariyay qaybaha kala duwan ee jirkiisa sida dhabarkiisa, calooshiisa iyo sidoo kale laabatooyinka ama kilkilooyinka halka loo yaqaano kaasi oo qaybo ka mid ah soo geliyay dokumentiyada waayay si aan looga qaadin sida uu isagu sheegay. waayo waxa uu mutaysan lahaa haddii gacanta lagu dhigi lahaa toogasho ama sidoo kale deldelaad. xogta uu jirkiisa kusoo qariyay oo laga yaabo inaad malaysato inay tahay xog kooban waa xog faahfaahinaysa dhibaatooyinka uu shacabkiisa u geystay Bashar al-Assad kaliya taliyaha haysta dalka Suuriya. dhibaatooyinka uu geystay Bashar al-Assad waa mid inta badan la yaqaano kuwaas oo ay ka mid yihiin in la isticmaalo bambooyinka qarxa iyo sidoo kale in lagu cabsi geliyo shacabka madaafiic ama toos loogu duqeeyo. isticmaalka sunta kiimikada oo tiraba dhowr jir lagu eedeeyay Bashar al-Assad cabsigelinta shacabkiisa iyo inuu dhammaan qulubta shacabka ka dhaadhiciyay in isaga mooye cid kale aan Suuriya ka talin karin waana keentay in malaayiin qof ay dalka dibadiisa u barakacaan. balse hadda waxaan kula wadaagi doonaa qiso ka duwan waxaasi oo dhan. 10,000 oo qof oo lagu waayay gudaha xabsiyada tan iyo sanadii 2011 waxa ay naftooda khatar u geliyeen inay soo bandhigaan xogaha ay ka hayaan Bashar al-Assad taasi oo laga yaabo inay galaafato iyagoo ku sugan qaybo ka mid ah qaaradaha Yurub iyo sidoo kale Ameerika. waxaanaanu halkaasi ku booqanay si ay noo siiyaan xogaha qaar. xubno ka mid ah dadkaasi waxa ay go'aansadeen inay soo istaagaan kamaradaha si ay xog toos ah u bixiyaan dhibaatooyinka uu geystay Bashar al-Assad oo ku haya shacabka dalkiisa ee dalka Suuriya. waxaana sidoo kale qaar ka mid ah ay go'aansadeen in aanay toos kamarada u hor imanin balse ay daaha dabadiisa xogta ka bixiyaan. Cabdilmajiid Barakaat waxa uu ka mid ahaa xoghaynta Bashar al-Assad ama xukuumaddiisa waxaana uu sheegay in uu ahaa qaybta loogu magac daray howlgalka degdega ah. kooxdaasi oo loo abaabulay inay ka hortagaan mudaharaadayaasha isla mar ahaantaasina ay gacanta ku dhigaan kuwaas oo u geysta ciqaab xoogan oo ay ka mid tahay jirdil iyo mararka qaarkood inay dil geystaan. Cabdilmajiid waxa uu ka mid ahaa xubnihii lagu aasaasay sidoo kalena waxa uu ka mid ahaa xubnihii ugu horeeyay ee ka baxsaday dalka Suuriya markii kooxdaasi uu ku biiray. Barakaat shakhsi ahaantiisa waxa uu ahaa qofka ururiya ama ay xafiiskiisa kusoo dhacaan xogta ugu dambaysa ee ka kala imanaysa gobolada, magaalooyinka iyo sidoo kale tuulooyinka dalka Suuriya kuwaas oo ku saabsan mudaharaadayaasha, in la dilay, cidda la dhaawacay, cidda fulisay howlgallada qaar iyo sidoo kale sida looga howlgalay taasi oo gacantiisa kusoo ururisay ugu dambeyn oo ka diyaarinay warbixin dhammaystiran. waxa uu maalin kasta diyaarin jiray tiro warbixin ah isagoo u gaadhi ku qaadi jiray una geyn jiray Bashar al-Assad oo uu geyn jiray qasrigiisa. Cabdilmajiid Barakaat sida uu sheegay waxa uu lahaa gaari khaas ah. Bashar al-Assadna waxa uu isaga iyo koox kaleba si gooni ah iyo si toos ah heshiis ula galay sida ay hawsha uga howlgeli lahaayeen. waxaana ka mid ah xubnaha ugu firfircoon ee soo gudbiya warbixinaha mudaharaadayaasha iyo xalka halka uu marayo. marka aynu eegno hadalka Barakaat sida uu sheegay Bashar al-Assad waxa uu ogaa dhammaan go'aanada la gaadhayo iyo hawl kasta oo la fulinayo. dhinaca kale Cabdilmajiid Barakaat waxa uu ahaa basaas dahsoon oo xog kasta oo diyaariyo ama warbixin kasta oo daabaco koobigeeda u gudbin jiray asxaabtiisa oo ku sugan dalka dibadiisa. waxa uu sheegay inuu koobiyeyn jiray ama qaarkood uu ku qarin jiray xamaamka iyo goobaha uu ku dhuunto isla mar ahaantaasina uu diri jiray xubno saxafiyiin oo ku sugan dalka gudihiisa iyo dibadiisaba.
cabdilmajiid markii uu ogaaday in lagu daba jiro islamar ahaantaasina uu shaki ku dhashay madaxdiisii waxa uu go'aansaday inuu si degdega dalka uga baxo isagoo dhuumasho kaga baxaya waxaana uu soo qaatay xogtii uu soo qaadi karayay intii taagtiisa iyo tamartiisa ahayd. waxa uu sheegay inuu ku sigtay in la xiri gaaray ugu dambeynse waxa uu soo gaaray xuduudka u dhexeeya Turkiga iyo Suuriya waxaana uu Ilaahay ka bariyay inaanay askartu gacanta ku dhigan oo aan la baadhin askartu in ay mooganaayeen iyo inay toos u sii daayeenba. waxa uu ugu dambeyntii kusoo gudbay isagoo aan la baadhin waxaana uu la soo tallaabay dhammaan xogtii uu sitay. balse su-aashu waxa ay tahay cabdilmajiid ma waxa uu ogaa inay jirto hay-ad ka shaqeysa isku dabaridka xogaha noocani oo kale ah oo ka jirta magaalada uu ka yimi aan ahayn. balse xaalku ugu dambeyn waxa uu noqday inuu hay-adaasi la soo xiriiro oo uu soo gudbiyo xogii uu hayay wixii macquulka ahaa. hay-adda uu xogtaasi u diray waxa lagu magacaabaa loona soo gaabiyo Sija waana hay-ad loo soo gaabiyo hay-adda la xisaabtanka iyo sidoo kale ku dabaqida cadaaladda xubnaha dambiga ka gala shacabka. waxaana ay hay-adaasi waqtiga ay joogtay dalka Canada balse waxaanu safarnay Yurub si aanu ogaano hay-adan iyo waxa ay ka shaqeyso sheegi meena dowladda aanu ku safarnay iyo sidoo kale magaalada ay degan yihiin si aanay khatar u gelin xubnaha ka shaqeynaya hay-adaasi waa sida ay u dhigtay kanaalka Al Jazeera barnaamijkani. Bill Whaley waa muwaadin Canadian waana shakhsiga aasaasay Sija waxaanu weydiinay sababta uu aasaasay iyo sidoo kale ujeedada ay tahay in Sija ay ka shaqeyso iyo cidda kala shaqeysa habka ay xogtani u helaan. waxaana uu sheegay in xogtani ay usoo ururiyaan xubno kala shaqeeya kuwaas oo ku sugan dalka gudihiisa iyo dibadiisaba. isla mar ahaantaasna waxaa jira agaasimaha qeybta kaydka iyo isku dabaridka kaasi oo ka shaqeeya diyaarinta xogaha lasoo gudbiyey isla mar ahaantaasna tafatira ugu dambeynna waxaa loo gudbiyaa goobaha ama cidda ay khusayso arrintani sida maxkamadaha qaar iyo sidoo kale hay-adaha xuquuqul insaanka ee caalamka. Whaley taariikhdiisu ma sii foga marka loo eego howlaha noocani oo kale ah iyo diyaarinta dacwadaha balse waxa uu hore uga soo shaqeeyay dowladaha ay ka mid yihiin Kongada Dimuqraadiga, Rwanda iyo sidoo kale Yugoslaafiyadii hore kuwaas oo ka mid ahaa dowladihii uu soo oogay dacwadahooda. balse waxa sida uu sheegay jirta in xogtani uu ka ururiyo dhinacyada sirdoonka militariga xisbul bacthka oo ah xisbiga siyaasiga ah ee Bashar al-Assad uu ka tirsan yahay ee ka taliya dalka Suuriya isla mar ahaantaasina uu gudbiyo hay-ad kasta oo isleeyahay waxa ay ku xukumi kartaa xukun ama sidoo kale waxa ay ka dhigan kartaa caddayn loo baahan yahay in lagu qaado Bashar al-Assad. waana sababta uu aasaasay Sija oo ah hay-adda la dagaalanka dulmiga iyo sidoo kale waxa uu sheegay xoguhu inay kusoo gaaraan noocyo kala duwan balse hadal kama jiro Suuriya in ay ka dhacday dhibaato noocii ugu xumayd taariikhdan la joogo iyo sidoo kale dagaalkii uu foosha xumaa oo ay ku hirdamayaan dowlado iyo sidoo kale jabhada ka dhex aasaasmay Suuriya. Whaley waxa uu sheegay inay kusoo gaaraan qaar lagu soo duubay kiishash fara badan isla mar ahaantaasina aada loo soo adkeeyay iyo sidoo kale qaar lagu soo qariyay saxaaradaha khudaarta lagu soo qaado qaar kale oo lagu soo qaaday boorsooyinka dhabarka ama ay qaataan ciyaartooyadu iyo sidoo kale kuwa kale loo soo dhexgeliyay alaabaha qaar usoo baxaya dalka dibadiisa. waxaana uu sheegay inay habab badan oo kala duwan usoo gaadhaan qoraalada iyo fiidiyoyada ay raadinayaan. waa Chris waa mid ka mid ah xubnaha uu soo tahriibiyay xogta kana soo saara gudaha Suuriya waxa uu ku sugan yahay dalka gudihiisa waxaana uu booqdaa goobaha laga guuray ee ay xukuumaddu hore ugu shaqeyn jirtay isagoo oo soo saara keedad fara badan oo qoraallo iyo muuqaalaba isugu jira. Chris waxa uu hadda kula hadlayaa saaxiibkii James Whale khad telefoon oo la ilaaliyay ammaankiisa waxaana uu ku sugan yahay gudaha Suuriya. Mr. Whale waxa uu sheegay in aanay khatartu yarayn balse uu hadda ku sugan yahay goob aamina inkastoo mararka qaar la kulmo dagaalo joogta isla mar ahaantaasna dushiisa la isku qabsado. halkaasi waxaa kaaga cad in aan Chris la hadda la ogeyn shakhsiga rasmiga ah ee uu yahay oo aanay ka warhaynin xubnaha Suuriya iyo sidoo kale xukuumadda iyo xubnaha ka dagaalamaya gudaha Suuriya intuba. waxa la weydiiyay Cabdilmajiid tan iyo markii uu dalka gudihiisa ka soo baxay tirada uu gacanta ku dhigay ee xog ah ama dokumenti ee ay gaarayaan tiradoodu waxaana uu sheegay inay yihiin 500 oo dokumenti balse su-aasha kale lagu celiyay ayaa ahayd sidee loo rumaysan karaa dokumentiyadani inay yihiin kuwii saxda ahaa ama xaqiiqada ahaa. waxaana uu soo kani waa saxiixa Bashar al-Assad oo amar ku bixinaya in la laayo ama tallaabo laga qaado
qof kasta oo mudaharaada oo isku day inuu ka hor yimaado nidaamkiisa iyo xukuumaddiisa. taa beddelkeedana waxa uu waqtiga saxiixan u dhacay uu sheegay beesha caalamka inay xukuumaddiisu ku dadaalayso in ay fuliso dalabka shacabka isla mar ahaantaasina aan qof mudaharaada dhib loo geysan doonin. Cabdilmajiid Barakaat waxa uu sheegay in qoralladan qaybo ka mid ah ay kasoo gaadheen Deir ez-Zor oo ah mid ka mid ah magaalooyinka ugu weyn bariga Suuriya, waana magaalada labaad ee uu ka bilaabmay mudaharaadku. isla mar ahaantaasina waxa uu sheegay bishii koowaad inay soo gaadheen tiro qoraalla ah oo sideedan muuqata ay ka mid yihiin kuwani oo lagu qoray gacanta oo ay soo gudbiyeen xubnihii la shaqaynayay Cabdilmajiid oo gacantooda kusoo qoray. waana mid ka mid ah magaalooyinka ay ka dhaceen falalka ugu foosha xumaa kuwaasi oo loogu geystay shacabka, taasi oo lagu waayay kumanaan iyada iyo magaalooyinka dhigeeda ee Suuriya. waxaana loo isticmaalay ereyga ah abidkiin baqayliya, balse waxaa idin dambaysa gacanta adag ee xukuumadayada. xilli waxaa halkaa marayo mudaharaadka ka bilaabmay mid salmiya oo nabad lagu banaanbaxayo isuna bedelay dagaal lagu hoobtay. waxaa ku dhintay nus milyan qof ama 500,000 oo qof, halka lagu qasbay inay barakacaan 5 milyan oo qof oo u baxay dalka dibadiisa. 100,000 oo qof ayaa ilaa hadda aan lahaynin meel ay jaan iyo cirib dhigeen, taasi oo inta badan loo saadaalinayo in ay gacanta ku dhigaan xubnaha sirdoonka jabhadaha ka hoos shaqeeya Bashaar al-Assad oo kala duwan oo qaarkood ilaa haddaan magacyadooda la garanaynin, iyo sidoo kale xubnaha mucaaradka kuwaasi oo ku jira gudaha xabsiyada Suuriya. ilaa hadda nambaradu waa kuwa ku cabsi gelinaya markaa dib u eegto warbixinaha laga diyaariyay. xubnahaasi la laayayna waxaa ka mid ah dad isku hela qoysas dhammaystiran iyo sidoo kale qaraabo fara badan. qaar badan oo ka midina waxa ay ku jiraan da'da caruurnimo, kuwaasi oo aan ilaa hadda lahaynin meel ay jaan iyo cirib dhigeen. Maasim bin Xamaada waxa 19 bilood lagu la'aa gudaha xabsiyada Suuriya. 2011 dhamaadkiisii markii uu bilaabmay wixii lagu magacdaray guga carabtu ee uu soo gaadhay dalka Suuriya, waxa uu Maasim ahaa mid ka mid ah shakhsiyaadka ku nool magaalada Deir ez-Zor ee bariga Suuriya, waxaana uu ahaa injineer ka shaqeeya dhuumaha naaftada iyo goobaha laga soo saaro naaftada dalka Suuriya. waxaana uu sheegay inuu lahaa asxaab fara badan, ehel, jecel iyo sidoo kale qoys ballaadhan, keliya ta uu oomanaa nolol xorriyad ah. Maasim waqtiga la qaban doono waxa uu doonayay isla mar ahaantaasina uu saarnaa gurigiisa dushiisa isagoo haystay kamarad uu isagu isticmaali jiray, waxaana uu doonayay in uu duubo isbedel uu arkayay inuu yimid Suuriya, kaasi oo uu doonayay inuu ka mid noqdo xubnaha ka faa'iideysta mira dhalkiisa. balse xaalkiisu waxa uu ku dambeeyay in la dhiga xabsi 19 biloodna aan laga warhelin halka uu jaan iyo cirib dhigay iyo inuu nool yahay. daawade qaybta koowaad ee barnaamijka halkaasi ayaynu ku joojin doonaa. qaybta labaad waxay noogu soo socdaa mid ka mid ah xubnihii soo baxsaday oo xogta isna badan soo qaaday, kuwaas isugu jira muuqaala iyo sawiro, kaasi oo ku darso oo aan isticmaali doonin hadalkiisa si aan loo garanin, xataa aamini waayay in codkiisa la bedelo, balse dhegta ugu sheegi doona gabadha wariyaha sida uu xaal u jiro iyo sidoo kale waxa uu la kulmay iyo Maasim xaalkiisa, dhibaatooyinkii lala kulmay iyo wixii lagula dhaqmay. la soo qaybta dambe. waad ku mahadsantahay daawashadaada. nabadgelyo. 10 9 8 7 6 5